السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ددوينها الصوماليات يكون الوطن كان إنجليزكا سيبا والدينتا وهويوينكا أبوينكا كون الوطن كان إنجليزكا سيد أدلا سعطان مالميه وقدم بي دالين يرب بدن أيا وطن كان اللوغلاي سيبا مديادة لكن واحد مودا إن دادك الصوماليات أيهين داد أنا أدونكا سعودان لسعونين عرور تودا كان ريركي وحلا قد لنا أيها بديبكو دا هايستا ريرها كالنا وحي بلطهاي مالهو نولشودا أي مركاسي أي كسي فوفين لكنسه مدبان ربعيناد إلا وداكتان إن قفك بن آدنك وأنحو قفك كالي والالكيسا جدتك waxaa taagan dhalinyaro Soomaaliyeed oo inta badan runtii waalidiintooda la garanayo hooyooyinkooda la garanayo raggi dhalayna ay u badan tahay inay fadhiyaan baararka oo ay markaasi ka hadlayaan waxaan dani in ugu jiro runtii wiilkiisana ay u badan tahay in jidka lagu dilo ama uu xabsiga uu markaas u galo Soomaaliyeed loo yaro ma qabtaan idin difaaca ma qabtaan community Soomaali ah oo markaas caruurtiina aad isku geysaan oo markaas lagu dhaqan celiyo ma qabtaan culimo wadankan Ingiriiska ku nool oo runtii ka hadla dhibaatada dhabta ah ee haysata reeraha Soomaaliyeed ama isku daya in ay markaas booqdaan reeraha dhibaatada ay haysato caruurta ay ka xiran yihiin caruurta laga dilay isla markaasna aysan u soo nasteexeenin sidaas darteed Soomaaliya waa inaad tashataan group waliba oo xaafad ku nool intaad isku tagtaan aad wada hadashaan danahiina qabsada shantii famil oo hal meel degan inay iska warhayaan isla community uma baahnidin haddii aad WhatsApp-ka aad ku xiriirtaan oo haddii dhibaato halka ka dhacdo kan kale uu la socodsiiyo wax waliba idin fududaanayaan dadka aan noolnahay sharciga siiyay nabadana siiyana haddii aad wanaag aad ula tagtaan wax alaalo wanaag ahna waa ay idinku taageerayaan laakiin sidaan ku socono waa si qaldan soo ma garan in shaati la xirto taay la xirto meel la soo fadhiistana Soomaaliyeey waa la socotaan wax aan ku keenay ama aan ku keeni doono ma laha ilaa iyo qalbiyadeena oo nadiif oo markaas u ahaado aan isku dayno in aan caruurta aan ka badbaadino dhibaatada aadka u baan ee wadankan Ingiriiska ka taagan oo ah dilalka dhanka midiyada ugu dambeyntii Soomaaliyeey hooyooyin badan ayaa hore u ooyay qaarna haatan ay ooynayaan qaarna waa ay ooy doonaan laakiinse mid baan idin sheegaya hooyada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha waa ay dadaashay wax waliba caruurteeda waa ay u tartay laakiinse wiilashii markay gaaraan 14 sano ilaa 20 sano inta u dhaxaysa gacanta hooyada waa uu ka baxaa sababtu waa maxay aabihii la rabay in uu xilkaasi la wareego markuu wiilka uu doonayo in uu life-ka uu la qabsado waxay u badan tahay in aad baararka aad fadhisaan aad siyaasad ku doodaysaan ama qabiil laakiinse Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu idin la xisaabtami doonaa aabba alaale aabihii caruurtiisa dayacay وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته